kusoo dhawaada somalishe.com. waxaa maanta oo ay bishu tahay 15 Abriil 2019 laga bixiyay baasaboorka Soomaaliga xarunta Jarmalka ee Berlin. sidaan wada ognahay dhammaan wadamada Yurub ayaa dhawaan laga hirgeliyay in la bixiyo baasaboorka Soomaaliga. haddaba mar aan la kulannay dadweynaha ka qaadanayay goobtaasi baasaboorada ayaa aada ugu faraxsanaa. waxay noo sheegeen inay baahi aada u qabeen qaadashada baasaboorkan Soomaaliga ee muddada dheer xanibnaa. waxaa kaloo aan wareysi la yeelanay safiirka xigeenka u fadhiya Soomaalida magaalada Berlin oo faahfaahin dheer ka bixiyay baahida loo qabay iyo wixii ay u qaban jireen Soomaalida intii aan la helin baasaboorkaasi. mahadsan tahay marka xiga waa sida aad u sheegtay maantay oo bishu tahay 15 bisha Abriil ayaan ka bilownay xarunta safaaradda Soomaaliya Berlin qaadashada baasaboorradii ayaan ka bilownay. su-aasheedu jeed baahida loo qabay haddii aan ka jawaabo baahi weyn ayaa loo qabay iyadoo dowladda Jarmalka iyo xafiisyadoodu ay si weyn ugu xujeeyaan dadka Soomaalida ah inay la yimaadaan baasaboorro si ay u xaqiijiyaan cidda ay yihiin, si ay u suurto gasho in howlo badan oo madani ah oo ay ka mid tahay sida ilmaha iyo ku qoridda aabbahood oo dhib weyn lagala kulmo maadaama ay yimaadaan Soomaalida inta badani ay soo galaan dalkan iyagoo dukumeenti wadan ayaa dhibaato badan ay kala kulmaan in ilmahooda lagu soo jaro ama loo sameeyo waraaqaha dhalashada oo inta badan lagu qoro hooyooyinka, taasoo khilaafsan sida aad ogtihiin shareecada islaamka, dastuurka Soomaaliya iyo dhaqanka Soomaalida. haddaba dhibaatooyinka noocaas ayuu buuxinayaa. wuxuu kaloo buuxiyaa in la aqoonsado lana hubiyo jinsiyadda qofka Soomaaliga. wuxuu u suurto gelinayaa waxyaabo badan oo ay ka hortaagneyd aqoonsi la-aantooda. waxaa jira dukumentiga la siiyo dadka Soomaalida kuwa ay ku dhoofaan, waxaa ku qoran inta badan qofka kan waxaa meesha ugu qorani waa wixii asaga uu sheegtay, laakiin wax caddayna uma hayno, taasuna meesha ayay ka baxaysaa. haddaba umuuro badan oo ayaa jira uu xalinayo baasaboorka. baasaboorka markaa ma isla safaaradda dhexdeeda isla maanta lagu qaadanayaa mise waa la sugayaa oo dalab buu leeyahay? baasaboorka halka kan waxaa lagu sameeyaa dadka waxaa laga qaadaa macluumaadka magacooda, dhalashadooda, waqtiga ay da-da ay jiraan, waqtiga ay dhasheen iyo faraha laga qaadaa, saxiixa ayaa laga qaadaa, sawirka ayaa laga qaadaa. intaas ayaa waxaa loo diraa xarunta dhexe agaasinka jinsiyadaha iyo baasaboorrada. halkaas ayaa lagu soo daabacaa, markaas ayaa dib marka la hubiyo iyaguna ay hubin iyo ay mariyaan arrimo mataqaanaa hubin ay mariyaan ayaa lasoo diraa. wuxuu qaataa baasaboorku ugu yaraan 4 usbuuc ayuu qaataa sida ay noo sheegeen maxaan kuu sheegaa hay-adda jinsiyaadka iyo baasaboorrada. maanta maba Jarmalku kaliya hataa ay ka bilaabantay arrintu mise wadamo badan oo Yurub sidoo kale? waxaan ugu maqaalaa in horay ay uga jireen baasaboorro Yurub laga bixin jiray safaaradda Soomaaliya ee u fadhida Brussels Belgiumka, safaaradda Soomaaliya Talyaaniga. labadaas safaaradoodba inay noogu horreeyeen bixinta baasaboorrada. haddase halkan ayaa laga bilaabay. dad badan oo Soomaali ah ayaana xiriiro badan nala soo sameynaya oo u baahan inay qaataan baasaboorka si ay ugu fushadaan baahiyahooda gaarka ah oo kala gedisan ee ay u qabaan baasaboorka. hadda ka hor baasaboorka intuu jirin maxay kala Soomaalida u fududeyn jirteen? baasaboorka intuu jirin waxaanu Soomaalida marka loo soo diro baasaboor waxaanu
u sheegi jirnay in safaaraddu aysan haynin waqtiga xaadirka inaysan u haynin baasaboor caddayntooda inay Soomaali yihiin markaanu la kulanno wareysano oo mataqaanaa xaqiiqsano ayaanu caddayn jirnay in qofkaas uu yahay Soomaali yahay hase yeeshee baasaboor aanan awoodiisa lahayn arrintaas hadda meesha waa ka baxday dadku weli caddayn way qaadan karaan qofku wuu weydiisan karaa in loo caddeeyo inuu Soomaali yahay in kaleeto hase yeeshee baasaboor ma hayna meesha waa ka baxday oo baasaboorkii sidaa aad arkaysay wuu hirgalay wuuna bilowday haddii qofkii Soomaali ah marka uu taxqiiqa maro mataqaanaa waxyaabaha loo baahan yahay baasaboorka wuu qaadan karay aad iyo aad ayaad umahadsan tahay Soomaalidu inta badan waxay maqleen baasaboorkii Jarmalka la bixinay baasaboorkii Soomaaliya lagu bixinaya Jarmalka cabsi badan way jirtaa dad badan oo bilaa sharciya jira oo Soomaaliya ama qaar ku meel gaar haysta sharci ku meel gaar arrimahaas sidoo wajahaysaan horta marka ugu horeysa waxaan rabaa dadka Soomaalida inaan u cadeyno celinta iyo sharciyinta waxa iska leh oo awoodeeda leh dalka martida loo yahay safaaradda Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya midna awood kuma leh mana faragelin karaan masiirka qofka dalbadaha dalbada inuu magagaliyo ka dalbado dalkan go'aankiisu waxa loo baahan yahay in la fahmo inay leeyihiin mataqaanaa saraakiisha ama dadka u qaybsan dawladdaas arrimahaas ayaga ah taa waxa weeye waxaan doonayaa inaan Soomaaliya u caddeeyo waxa ku soo haray celin iyo mataqaanaa waxa la yiraahdo safaaradda Soomaaliya ee Berlin ma haysato awood kama haysato Soomaaliya ay cidna siiso dokumenti lagu celiyo arrinta celinta iyo waxa weeye arrin khusaysa heshiis dhex mara labada dawladood waxay kaloo khusaysaa arrin khusayso weeye dadka martida loo yahay hadba sida ay ku qiimeeyaan in dadkani dalkooda ku laaban karaan iyo in kale hadalka hadda waxa ku jiray anagu ma cadeyn karno mana siin karno qofka document lagu celiyo ma laga maarmi karaa hadii mar baasaboor qofku haysto oo already la bixiyay baasaboor in ay documentiga kale lagu celinayo ma laga maarmi karaa waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo in documentiga la yiraahdo go home-ka inuu qofka Soomaaliga oo asagu doonayo inuu iskiis u laabto inuu xaq u leeyahay qofkaas waa la siinayaa go home baasaboor iyo hawlisama waxaa la siinayaa go home ama waxa lagu magacaabo emergency travel document waa qofkii asagu doonaya shuruudaha laga doonayana waxa weeye inuu biir qabo inuu asagu go'aansaday oo iskiis u go'aansaday inuu qaangaar yahay 18 sano inuu gaaray inuusan qabin cudur aan lagu daaweyn karin dalka صح intaas oo gaya waxa ku soo haray baasaboorka dadka qofka Soomaaliga xaq u leeyahay waxa weeye xaq kamid ah xuquuqdiisa muwaadinimo asaga ayaa marka ay tahay inuu dalbado haduu rabo haduu soo rabin gaar waxa soo haray iskuma xirna celin iyo baasaboor wax isku xiran ma aha arrinta marka celintu waa arrin u taala dadka martida loo yahay kuma xirna baasaboorka iyo baasaboor la'aan dadka qaar maadaama hadda ay Jarmalka dawladdiisu bari dhexdaas ay isbedeshay wasiirka arrimaha dibadduna uu ku dhiiranaya hadii jeer in dadka la celiyo arrimaha gudaha uu ku dhiiranayo in la celiyo arrin dad la qasbayo oo maladi soo mariyay wali wax saasa waxaa jira in dad badan ay weydiiyaan oo ay doonayaan inay ay celiyaan haddaba anaga siyaasadeenu waxa weeye qof asagoo aan doonayn oo asagoo xor aan doonayn anagu ma siino documenti xiriirka naga dhaxeeya waxa weeye inaysan nala soo aadin cid ayagu ay khasbayaan waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego ayaga laftooda shuruuc bay leeyihiin celinta kuma koobna ogolaanshaha celintu kaliya maxkamadaha ama mataqaanaa hay'adaha dowladda Jarmalka waxaa jira hay'ad kaleeto oo ah hay'adda European Court ama maxkamadda Europe
oo iyadu kor kasii haysata oo iyadu go-aamisa dalka dadkaas u dhasheen inuu yahay dad lagu celin karo oo nabad yahay in kaleeto. marka inkastoo arrimahaas oo anaga takhasuskana taas waa macluumaad aan helnay laakiin faragelinna kuma lihiin takhasuskaygana ma aad iyo aad ayaad mahadsantahay.